kusoo dhawaada daawadayaal barnaamijka diiradda sooyaalka oo aan kaga hadalna taariikhda hore ee Soomaaliya guud ahaan gaar ahaanse gobolada Puntland. qaybta hore waxay noo joogtay gabayga qiimaha badnaa ee uu tiriyay Allahu naxariistay Cabdullaahi Sultaan Timo Cadde maalinkii calan saarka kadib markii ay isku darsameen labadii qaybood ee Soomaalida ee kala ahaa waqooyi iyo koonfur oo ay kala maamulayeen Ingiriiska iyo Talyaaniga. waxaa tihiin hor dawlad oo adiga gacantiina ku jirtaad leedihiin waxaad leedihiin bandiirad yaad leedihiin waa gallad ilaahay waa inaynu adkaynaa oo aynu dhowrnaa adduunka si wanaagsan nagala jooga hadda oo ummad badan ay nagala joogto mararka ka ahaado rabidayada aad aynu u doonaanu rabno inaynu jecel nahay shucuubka adduunka inaan wanaag xariir wanaagsan inaynu la lahaano calankaanu sugaynayeen saankiisaynow seerma waydo hilaacdayow sagal maanta daruurado sigadiinaga maydhayow saqdhaxaanu ahayne kii soo saaray cadcaadow samada kii wekaaye xidiga mid la siiyayow saaxirkii kala guuray sarreeyo manusqaamow aan siduu yahay eegno ka nasiibkana saare saaxidiinta islaamkoe subxisaa jimcayaashiyo siryaanta iyo haweenku calankaysaadseenow dina kaanayna siinine saatir noogu yaboohayow saaxirkii kala guuraye sareeyo manusqaamow aan siduu yahay eegno ka nasiibkana saare. waxaa xusid mudan Allahu naxariistay Maxamed Cawaale Liibaan inuu ahaa ninkii hindisay ee sameeyay calanka Soomaaliya. waxa uu ku geeriyooday magaalada Toronto ee dalka Canada kadib markii uu magangalyo ku tagay halkaasi si uu uga badbaado dagaaladii sokeeye ee dalka Soomaaliya ka qarxaday 1991. haddaba markii xornimada la qaatay 1960 waxa madaxweyne aadan Cabdulle Cusmaan Allahu naxariisto uu doortay inuu ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee ay yeelato Soomaaliya uu noqdo Cabdirashiid Cali Sharmaarke tan iyo 1964. xukuumaddii ugu horeysay ee uu soo dhisana waxay tiradoodu ahayd 14 wasiir. dawladdani waxay ku guuleysatay inay dhiidaba adag u taagaan calanka dalka dadka iyo wixii ay dowladnimada lahayd oo dhan caalamkana gaarsiiyaan mowqifkooda iyo aragtidooda dhabta ah ee ummadda Soomaaliyeed oo ahaa nabad ku wada noolaanshaha dhammaanba caalamka. dawladdii Soomaaliya sanadka 1963 waxay qaadatay go'aan ay dalka uga saarayso dawladdii Ingiriiska safiiradeedii iyo diblomaasiyiin wixii dalka ka joogay xilligaas kadib markii muran xoog leh uu soo kala dhexgalay Kenya iyo Soomaaliya kaasoo ku saabsanaa lahaanshaha dhulka Soomaalida ee waqooyi bari NFD. dawladda Ingiriisku si cad bay u taageertay Kenya NFD inay tahay qayb ka mid ah dhulka Kenya ayna la mid yihiin dadka Soomaalida ah ee degan deegaanadaasi qowmiyadaha kale ee Kenya sida Kikuyu iyo Maasai oo kale. diblomaasiyiintii Ingiriiska waxay shaqaalahoodii dalka joogay u daadgureeyeen magaalada Nairobi ee dalka Kenya iyaga oo diyaarado looga qaadaya magaalada Muqdisho. The government of Somalia, East Africa, has severed diplomatic relations with Britain. So at Mogadishu, our embassy staff had to say goodbye to the country in which they'd been very happy. In some quarters, the decision was a surprise, and hurried packing was the order of the day. Of course, they all knew that Somalia claims territory in neighboring Kenya, known as the North Frontier District. oo xilligaasi ahaa xildhibaan laga soo doortay gobolada waqooyi ee dalka Soomaaliya kana hadalaya sababaha dawladda Soomaaliya aqoonsiga diblomaasiyanimo ee dawladda Ingiriiska uga laabatay. As a member of parliament, I support the government in this action of theirs. I realize that it's an unfriendly act
but we feel as Somalis that the British government has been guilty of more serious unfriendly acts in giving away our territories and denying us the right to self-determination. From way back in 1946, after the President, and on several occasions I took a very active part in major actions, such as the Full Power Commission which came here at the end of 1947. The National Assembly gave power to the government of the Somali Republic to break off diplomatic relations with Great Britain owing to the decision by Her Majesty's government to create a seventh region in Kenya comprising part of the Northern Frontier District, thus failing to recognize the wishes expressed by the NFT people to secede from Kenya and unite with the Somali Republic. There are about 250,000 Somalis in NFD, approximately. All Kenyans living in the Somali Republic, whether united for Mau Mau activities or not, will be given full protection. In fact, their existing status will not be changed unless they choose. isla beriya horta wasiirka mustacmaraadka waa la bedelay oo nin Ian MacLeod la yiraahdo yaa wasiir laga dhigay wafdigii waa la soo diray NFD bay yimaadeen lixda magaalo markaa la dhihi jiray Marsabit iyo Siolo iyo Moyale oo laga gooyay hadda gobolka Waqooyi Bari yaa NFD ya Garissa iyo Mandera iyo Wajeer lixda NFD baa la dhihi jiray way wada mareen reportkooda wuxuu ahaa markaa boqolkii 87 inay doonayaan inay Soomaali raacaan marka sidii aanka la ogaa dawladda Ingiriiska way una cagadiiday reportkii in ay soo saareen waxay ahayd oo mushkiladda meesha ka jirtay in uu Ingiriisku NFD uu rabay inuu Kenya ku daro sidaa uu Kenya ugu darayay caladii laga qaaday darteed baa Ingiriiskii la yirina dhaaf oo isaga gumaysan jiray Kenya haystay ilaa 62 buu siiyay xornimada marka sidaa darteed baa dagaalku ahaa halkaas laga qaaday markii ugu dambeysayna waliba de waxa dhacay dagaalo badan oo de waa dadka lagu laayay Soomaali fara badan lagu laayay oo gudaha ay ka dagaalameen oo Siolo meesha la yiraahdo dad fara badan oo ilaa maan 40 loo leeyahay jiray baa jiray adduunka dadka loo abuuray soo yihiine NFD ayaa leh ummada adduunka dadka loo abuuray soo yihiine NFD ayaa leh ilaaha ku siiyo NFD adaale ilaaha ku siiyo NFD adaale annaka joogno orgama cunaaya kayralinayno la adoonsan maaye annaka joogno orgama cunaaya kayralinayno la adoonsan maaye annaka joogno orgama cunaaya kayralinayno la adoonsan maaye adduunka dadka loo abuuray soo yihiine NFD ayaa leh ummada adduunka dadka loo abuuray soo yihiine NFD ayaa leh dawladani waxay ku guuleysatay inay qalinka ku duugto in xeebta uu Faransiisku gumaystay ee Djibouti xilligaasi madax banaani qaadan karto taasoo laga ansixiyay golayaasha dawladda Soomaaliya siyaasiyiinta Soomaaliya qaarkood ayaa qaba in dawladani ahayd maamul dawladeedkii ugu fiicnaa dawladihii soo maray Soomaaliya madaxweyne Aadan Cadde 25 May 1963 wuxuu ka mid ahaa raggii dhidibada u taagay kana qayb qaatay aasaasidda dhismihii ururka midnimada Afrika oo lagu qabtay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya 1964 Aadan Cadde waxa uu kaalin wanaagsan ka ciyaaray dagaalkii dhexmaray Soomaaliya iyo Itoobiya weerarka oo dadka intiisa badan ay qabeen inay ku lug lahaayeen wadamo shisheeye oo aan doonayn nabad ku wada noolaanshaha labada dal ee dariska ah isla xilligaasi waxa gudaha dawladda Itoobiya ka jiray mucaaradad Soomaaliyeed oo ka soo horjeeday xukuumadda Aadan Cadde iyo Cabdirashiid qaabkii ay u maamuleen dagaalkii dhacay 1964
madaxweyne aadan cabdulle cusmaan 1964 wuxuu doorashadii dhacday kadib u magacaabay inuu ra'iisul wasaare noqdo allah u naxariistay cabdirasaaq xaaji xuseen oo xilkaasi hayay tan iyo inta laga soo gaaro 1967 wuxuuna soo dhisay golo xukuumad oo dhammaa 12 wasiir mudane cabdirasaaq xaaji xuseen waxa dadka intiisa badan qabaan in lagu xasuusto inuu sameeyo isbedel maamul oo dhab ah iyo isaga oo musuqmaasuq iyo wax isdabamarintiisa aad u weyn ula dagaalamay madaxweyne aadan cadde intii uu xilka hayay wuxuu safar badan ku tagay wadamo badan oo u badan Afrika, Aasiya iyo Yurub si uu taageero siyaasadeed mid dhaqaalaba ugu helo dawladda Urdanka ee Soomaaliya. dawladda cadda waxay ahayd dawladda u horeysay ee Soomaaliyeed calanka taagtay madaxweyne ugu horeeyay waa Soomaaliyeed oo sovereignty-ga madax bannaanida muujiyay dawladdaas xukuumad waxay dhistay dastuurkeena iyada samaysay dastuurkii lagu dhaqmay 60kii xukuumadda u horeysay bay dhistay xuduudihii iyo deegaanadeed bay samaysay isla markaas waxa lagu xasuusan karaa iyadoo yar oo 4 sano jirtaba dagaal baa wuxuu ka bilowday xuduudada 64 Ethiopia dawladda guul iyo lixaad waxay soo adkaysay xuduudadeeda waa soo xirtay waana ku guuleysatay xuduud dagaalkaas wuxuu ahaa dagaal runtii dawladda Soomaaliyeed iyadoo 4 sano jirta qabsaday waxay la gashay dawladda Ethiopia hadda gaamirtay oo dawlad weyn ahayd si aad u qurux badan bay waxa markaas ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed oo 4 sano ka yar wax yeer jiray wuxuu ku guuleystay inuu ka adkaado ama meel mariyo ama uu sugo xuduudadii ay lahaayeen ummadda Soomaaliyeed. kadib markii doorashadii xisbiyada ee dhacday 10 Juun 1967 waxa xilka ku guuleystay inuu madaxweyne noqdo allah u naxariistay cabdirashiid cali sharmaarke madaxweyne cabdirashiid cali sharmaarke wuxuu ra'iisul wasaare u magacaabay allah u naxariistay maxamed xaaji ibraahim cigaal taasoo mucaarad xoog leh ka hortimid magacaabistiisa dabadeed cigaal waxa uu soo dhisay golihiisa wasiirada ee xukuumaddaasi oo ka koobnaa 17 wasaaradood waxa mararka qaarkood xilligaasi dadku faraha ku fiiqi jireen inay jirtay musuqmaasuq iyo wax isdabamarin ku saabsan doorashooyinka dhacay oo loogu magac daray waad khasaaro taasoo muran xoog leh ka dhexdhalisay bulshada gudaheeda inkasta oo dadaal badan jiray iyo shaqo fiican oo ay qabanayso xukuumadda cigaal misna waxa dadku si weyn ugu dhaliilaan inuu bixiyay dhulka waqooyi bari ee NFD uu ku wareejiyay dawladda Kenya memorandumkii Arusha la iskaga afkartay Kenya iyo Soomaaliya iskaga afkartay wuxuuna ahaa asaaskii ama gogoldhigii oo u gogoldhigaha wada hadalkii labada wadan iyo Zambia oo u garsoori ay ku ballameen inay nabad iyo wada hadal arrin wixii khilaafaad ah dhaxyilay inay ku dhameystaan waxa doonayaan aan aad u cadeeyo xogaakii yaraa khilaafaad ha mooyaan arrinkii jawharada ahaa ee la isku hayay wali shaqadiisii lama bilaabin idaaradii saddexda wadan ka koobnayd ee la doonayay in la qabtana waxaan jeclahay maanta inaan idin sheego in maantadan dhismaheediina la isku afkartay arrimadii ay ku shaqayn lahayd iyo waxa ay ku shaqayn lahayd maanta la dhameeyay oo la dhameeyay marka waxaan filayaa in haddaba imika shaqadii arrinkaas la guda geliyaan wuxuu noogu adkaa anagu haddaan reer Soomaaliya waxay ahayd inaanu ka raadino ama ka qancino Jomo Kenyatta inaanu arrinkani naga dhab yahay oo aan nabad wixii mashaakil naga dhaxeeyay inaan nabad lagu kala garbaxo inaan doonaynay asxaabta siyaasadeed ama xisbiyada dalka ka jiray oo gaarayay in ka badan 80 xisbi iyo doorashooyinkii dhacayba ayaa la oran karaa
waxay ahaayeen tillaabo dimuqraadiyadda curdanka ahayd ee Soomaaliya ka dhalatay sare u sii qaadaysa ka hor intaan inqilaabka military dhicin. waa kan madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ka hadlaya dhawaan xarunta BDRC ee barnaamijka dimuqraadiyeynta asxaabta xisbiyada badan ee Puntland tilmaamayana dimuqraadiyaddii iyo xisbiyadii siyaasadeed ee xilligaasi ka jirtay Soomaaliya kacaanka ka hor. sagaalkaas sano oo siyaasadeed oo 69kii u balanbayo qof Soomaali ah oo aragtidiisa u xiran ama loo xiran jirto Soomarna أنا واحد سوست الدرشة اللي إحنا نسقالكي بروح عن شو غيبة شن حسبك كنسناية نايدي شيء SYL SDU وح هذه اللي ريق يحسب الله بروح كنسناية. 15 أكتوبر 1969 madaxweyne Cabdirashiid isagoo kormeer ku jooga magaalada Laascaanood ee gobolka Sool uu ku galay xaaladahooda nololeed ee shacabka ku sugan deegaanadaasi kadib abaar baahsan oo dalka ka jirta awgeed waxa toogasho ku dilay mid kamid ah ciidanka ilaalada ee ku sugnaa Laascaanood. markii uu dhacay foodkii waa tii dawladda la doortay waa tii wixii la sameeyay abaar baa jirtay abaartaas uu maray Laascaanood buu yimi garoonkii Laascaanood oo geeda qarsay la oran jiray buu ka soo degay halkaasuu dadku ku soo dhaweeyay aad baa loogu farxay waa la soo dhaweeyay waa la yimi markii dambe wuxuu u soo gudbay meesha howlka dawladda hoose oo dawladda Ingiriis ka tagtay oo la dhisay walaa iyo dhiisaygii uu xukumi jiray uu joogay degmada halkaasuu ka khudbadeeyay halkaasuu masjid jaamaca Laascaanood ka dhisan wuxuu ka bixiyay lacagtii la weydiiyay oo lagu dhisi lahaa waan filayay inay markii 10,000 oo shilin ahayd oo lagu dhameystiray masaajidka oo yaraa uu bixiyay uu halka ka balan qaaday wuxuu ka duceeyay abaartii in Ilaahay dadka ka saaro oo markaa roob la'aan baa jirtay aad baa dadku loo jeclaa waxyaalo badan oo uu ka hadlay baa jiray oo Said Mubaarak Sheekh Muxtaar oo ahaa gudoomiyaha baarlamaanka oo la socday wuxuu sheegay in aanay ahayn sharciga dawladda in madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanku ay ka wada baxaan dalka magaalada madaxda ka wada baxaan inuu joogo laakiin xaalad jirta darteed baanu abaaraha iyo waxyaalaha dartood baanu maaragtay soo inuu adigu daruuri ah daruuratu tabiix al-mahduraat inay baahi jirta darteed baanu soo wada baxnay sida darteed inaan wada ogaano inaan xaaladaas ka hadlayay aad buu nin qalbi wacan oo nin muuminimo dadku aad inuu muuminimadiisa iyo taqinimadiisa aad loo jecel yahay buu ahaa dadka oo dhan isagoo si fiican u raali geliyay wixii uu ballan qaaday wixii uu sheegay hawlihii oo dhan si fiican dadka u maxaan ku yiraahdaa mabsuud u ahaa ayuu markii qadadii ay aadayeen guriyihii Ingiriiska oo meel ku farxas ku leh oo ka ahaa Laascaanood dhinaceeda hawdka xiga ku yaalay halkaas waxa ku dilay staafkiisa nin kamid ah waanu magaciisa kala garan maaye jahannama loo bixiyay kulleeba magaciisa jahannama loo rajiri magac buu lahaa laakiin jahannama loo bixiyay maalintii dambeena iyadoo aanu joogno Laascaanood baa la keenay isagii oo halka buurtaas stationka Laascaanood dhabarkiisa lagu toogtay oo ciidankii la socday ciidamada la soo diyaariyay meel walba laga keenay halka ku toogteen markaas waxa lagu aasay xabaalaha bahashaas kurilaalo dhabarkeeda ku yaala toga durdurka la yiraahdo dhabarkeeda ku aasay xabaalaha deer noqday oo aad u farabatay baa lagu aasay waa laga fogeeyay xabaalii kale oo ninka Cabdirashiid dilay dadku way dhibsanayeen waxa lagu aasay meel u jirta 1 kilomitir inta la aasay baa magaciisa lagu qoray laakiin waqtigaas waxa laga fogeeyay waa kii madaxweynihii dilay baa la lahaa barigaas aasqaran oo lagu sameeyay magaalada Muqdisho 20 Oktoobar 1969 madaxweyne Cabdirashiid waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta dawladda nooc kasta oo yihiinba diblomaasiyiin iyo dadweyne u badan waxgaradkii ama haldoorkii dalka
jeegada qaaba xoolaha waxay ahayd dawlad iyadu markaas laba sano xukuumaddiisu bay jirtay dawlad waxay ahayd sida oo kale iyaduna waxqabad ballaaran hadda gudaha iyo bannaankaba ka samaysay koritaan iyo dimuqraadiyad ballaaran bay samaysay dhammaan adeegyada bulshada waxaynu nidhaahno o dhan waxbarasho ahaadaan ama caafimaadka ahaadaan ama jideedka ahaadaan waxyaalaha ugu ballaarnaa ay samaysay cabdirashiid oo markii horena lagu xasuusto markii dambena lagu xasuusto cabdirashiid wuxuu ahaa ninkii soo saxiixay barnaamijkii ugu ballaarnaa oo soomaaliya ay maanta gaartay ama awoodda ay yeelatay soomaaliya xiliyadii dambe oo dhan barnaamijkii higsigeeda cabdirashiid buu ahaa heshiisku la galay waxay dowladda soviet unionka uu la soo galay xilligu prime ministerka ahaa taasaa sababtay marka in xuduudda xoogga dalka soomaaliyeed inuu noqdo ciidanka ugu awood badan oo soomaaliya ay haysatay xuduudahaas ciidankaasoo si aada ay u dhiseen dowladda soviet unionka markaa la dhehi jiray iyo mashaariic badan oo warshado lahaa ay ka mid ahaayeen warshadii mataqaanaa hilibka ay ka mid ahaayeen warshadii mataqaanaa jilib la dhehi jiray laasqoray ay ka mid ahaayeen mashaariic tiro badan mashaariic aada u tiro badan oo ay ka fuliyeen soviet unionka ay markaa dalka fuliyeen laakiin awoodooda ballaaran waxay ahayd sidoo kale waxay ka fulin jireen waxbarasho joogta ah bay hadda waxaa loo qaadi jiray dhalinyarada soomaaliyeed wax lagu soo bari jiray laakiin awoodda u ballaaran waxay ahayd tayada iyo tayasiinta xoogga dalka soomaaliyeed bay habeenkaasi waxaa jiray kulamo hoose oo ay yeelanayaan taageerayaasha xisbiga madaxweynaha ee Israel waxaa ka soo yeerayay ereyga tilmaamaya in xilka madaxweyne loo dhiibi doono Allahu naxariiste Xaaji Muuse Boqortan iyo inta laga gaarayo xilliga doorashada xigta markii la aasay habeenkiina waxaa loo fariistay xisbiga talada hayay markaas xisbiga leegada ahaa inuu soo sharxo musharxii u noqon lahaa bedeli lahaa madaxweynaha maadaama dowladda ay ka dhisnayd xisbiga leegada Muuse Boqor baa la soo xulay habeenkii oo dhan xisbiga leegada wuxuu ku jiray dooda xulitaanka musharraxa bedeli doona oo ka imaan doona xisbiga leegada waxaa hoos loo dhigay calanka Soomaaliya ee dhammaanba calaamada safaaradaha wadamada kale ee ku sugan caasimadda dalka ee Muqdisho magaalada Muqdisho ayaa maalinkaas waxa ay lahayd muuqaalkan taasoo dadku ay aad uga murugsanayeen dhimashada madaxweynaha iyagoo oo wargeysyada ka soo baxa dalka iyo boorarka darbiyada ku dhagan indhaha la raaciyay subaxnimadii 11 Oktoobar 1969 ayaa shacabku ku waabariisteen idaacadahana ka dhageysteen in ciidanka xoogga dalka taladii dalka la wareegeen taasoo wax garad badani ay aad uga xumaadeen walow shacabka qaarkiis ku farxeen ayna soo dhaweeyeen saq dhexe markay ahayd 9 saac ciidamada la wareegay hogaaminayay Maxamed Siyaad Barre shacabku wanu dadkii arday baan ahayn oo aad baan u soo dhaweynay dadku caleema la jarayay waa la soo dhaweynayay waa nagu cusbay nidaamku laakiin khaatib ilaa waxa laga taagnaa isnacaybkii ka dhashay
doorashadii lasoo maray baa ballaarnaa asxaabtii tirada badneed oo dalka ku tartamaysay darteed yaa baa barnaa dadku aad iyo aad ba waxa loo soo dhaweeyey kacaankii markaa dhashay isagoo markaas ururiyey dhammaan baarlamaankii joogay badankiis wasiiradii golihii wasiirada waa ururiyey waa qabtay anigu waxaan ka mid ahaa dadkii runtii baabuurta lagu ururiyay basaskii daba socdo caleemaha jiray baan ka mid ahaa shan iyo labaatan nin oo isku magacaabay golaha sare ayaa taladii dalka la wareegay dalkiina waxaa lagu soo rogay bandow aan cidina nuuxsan karin waxaana meel walba laga maqlaya samicado waaweyn kuwaas oo baahinaya suugaan iyo gabayo lagu ayidayo inqilaabka ciidan daawadayaal waxaanu intaa ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka diiradda sooyaalka oo aanu kaga hadlaynay taariikhda hore ee Soomaaliya tan iyo inta mid kan oo kale aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo